kolkii sidan loo kufsaday ummadda yaan aniguna heesihii kufsaday arda waxaa tira haddaan kala maqnaanayno waxba anigu taa kama qabo adiya yeelkaa asixa weeshe habla waad u sidatay waan ku soo nacnacay haddaan ku imaadane waa inaan sidii laba israba kala maqnaano bagaarsiyo yaa yidhi cibaadiyatana caana wada nuweyni yaraan ku loo faray wuxuu lumiyey raadciyada kooflow jiitoon dunida joogay weligeedba meel ugu dhegtamay dhooti lama geyna gabay ha uu yidhaa oo ku dhaacadan hagaageeda marka buu adduunyada u yahay macallinow geele rew kibirka waa lagu kufiye kaa hal la ogaada alla maga dhimaan hooyaday maro u soo siiyo taa markaan ka bilaabay heesihii waxaa la badiyey caashaqii berigaa dadka waa lagu mashquuliyey moogtahay caashaqa iyo nadaafadda iyo tacliinta khasabka ah iyo crash programka iyo maxaan ku idhahdaa saaliso walba shir baa la leeyahay iyo dadka waxyaalihii lagu arbushay bacad celin iyo waxaan oo dhan maarta kolkii sidan loo kufsaday ummadda yaan aniguna heesihii kufsaday waxaaban u malaynayaa xasan maxamed yuusuf maalmahan waa yaro sheekaysanayoo qolyo ka cabanayaa idhi maxay u jeedaanoo waxbuu ii yaro sheegayo waxaan idhi sax baa tahay wada dhararan qalbigu way rafanayaa gabadh meel maraysay baan rabaa inaan jeclaadahay oo jacaylkan la sheegayaba talagal baan ka dhigay meel maraysa jeclaa yaan rabaa inaan jeclaaday laakiin nin bay waalada ii durbaantamay wuxuu yidhi haddaad caashaq tahay dheefta wada diidi aniguna run baan mooday kama dhegaysteen maanta iyo shalaytiya doraad waan igiiqday baahidii haysan ka baqay inaan unqaaca saaxiibkiisa mooyaanuba gaajo ii dilay ninka inaan bureeyaan damcayeela talin doona baanish gabadhan jeclaadaba ragun baa loogu dawgalay aniguna gartaydaan rabaa inaan caddaystay fog isbaagta iyo sayjantaa dhuunta ii galay dambiil dhagaxa jiraan gurtoo luuqyada istaago oon diriir u qaansheerto oon dhowda kaga saaro ballantayda nimanka aqribay joojin mahayaan gaadhiyaashu way badan yihiin suuqa maraya tagsiga iyo laanrobaladu waxima yeelaan kuwa dowladda rafiidkii oo meel la dhigaya sayjantadase waa nacabiya kii ka haystada nusu saaco gabadhaa tiraa balaad u sheekaysid adiga oo waddadaa sii socday kaa hormarayaan dabeedna way la tegayaan sidii macawistoodii gurigoon cidi joogin baad aga wareegtahay meecaad waxaan uga baryey iyo weliga dhoodaan canshuur badan in lagu soo rogiyo kaambiyaalaba ee taraafiguna inay maalintii 100 ganaaxa leh marka waxaaban show jaajoosay sayjantadaa sheegayay oo ilaa 50kii habeen mooye aan maalin la soo bixinin oo magaalada waxa qorrofta habeenkii haya bacaadku ma qaban jirin waxaa dadka dhaqankadiya ku sameeya kow iyadaaba taraafigi unbaan show xusuusiyey kolkaasay faylasha hore raadsadeen iyo rajistaradii taase xaaji maxaw soo kaxee bahalkii ها مريدي عام صوك حاد نمان زي تنتظر وما انت ترافقي كور الصدين هي يعني والبل يدينا ويقول لي شنت هذا والله عقنا وين اللي بقول لي طيب يدنا على كلا دقي سجدت ضمبا يا عركي مارت كل كاسان اسكدي جري مركا وان دروك صدايو عن اسكدي جري قولدي او تجنتدان ماغي مركي دمبه وإلا لوشتين ولا ذا ما ربطها وبعنتها حقا مارتي ماشي هذا مركا هذا هنا نروح الشيء بابن كد يعني بدو كيسير لين كم بايلا مري ما قال مركا متن الشيء يسوع قبل بابن ترتن كذا قاعد عبد الله الرادي متن تري عند ديرلي سانو كلمات عبد الله الرادي عمركو gabadh buu fariiriisii faray oo golkaasan gabadhu gabaygii baan iloobay markaasaa ay anba waan aqaanaa gabayga eemaan kiisii oo kale u sameeyay gabadha magacyo badan buu ku sheegay
amra waxaa tidhahdaa haddaad aragta reerkooda asli waxaa tidhahdaa haddaad gaadho aqalkooda amra ardo waxaa tidhahdaa adiga waan ku aaminay aasiya u sheeg ruux dartaa oo man baan ahay dheh wax far badan buu sheeg gabadh fiican buu sheeg magacyadii un baan xasuustay wuxuu ku soo yidhi amri waxaa tidhahdaa qalbigu muufa kaa noqoy ifrax waxaa tidhahdaa dunduba soo dhacdaa asli waxaa tidhahdaa jeer ka qurux weyn aasiya xawaashay gabdhaha waxaan ku ardo waxaa tidhahdaa haddaan kala maqnaanayno waxba anigu taa kama qabo adiya yeelkaa aasiya xawaashay hablaa waad u sidatay waan ku soo nacnacay haddaan ku imaadane waa inaan sidii laba israba kala maqnaano sida kale caday kaa baqan darisyadii nuur reeraha ashuunkooda waad jabin taqaanaay qofkii ku maagtay iyo naagaha timaha jida gabadha intaan caashaqay baan meeday leeyahay ninka iga jeclaadaan rabaa inaan bureeyo ammaantaada ma sheegi kara caawa qure waxaa tahay macaan iyo qiraadh la isku soo daray ama caano qaad iyo basbaas ay ku kariyeen deganaanta laabyaa markaad jagac ka siinayso bishkuleeti nimaan fuushanayn gaari kari waayo gabadhii markay xanaaqday in ka tegey yuu yimid caysay ugu waday indhaa candhufka ka tag way soo raadiyey markaasuu yidhi gabadhi miyaada gabay buu sheegay waanu sheegay oo ku kaloon saaxiibkay baa tee waan ku caawina ugu daray kaygii ii sheeg buu yidhi sanawar xaggee laga soo iibi gabayga ma weligaa hay baadi tidhi gabadhu u sheeg baadi waani loobay kolkaan u sheegay marka ninkii baanu islaynay gosaanada kala qabtay boolis baan markaasaa li maxaa isku laysay goosaan gabadhan anigu jeclahay buu doonayaa inuu guursado gabadhay tusoo gabadhii baa kolkaasay arrintii loo sheegay markaasay tidhi masaas ahaa labadooda kii ay ammaana unbaan anigu yaan raacayo la sheekaysa war soo daabaan idhi gufaaco uu si kale ka dhigay buu soo daayay maanta